madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar iyo hogaaminta dalka waxaan idin ka codsanaynaa inaad gobolkii Gaashaamo iyo Xarshin iyo gobol Harewo la yiraahdo idin ku arintii kala waa dhameystirteen labadaana inaad ma aragtay aad u soo jeesataan oo aad bixisaan waxaan ogahay dadka gobolka Harewo jooga inay niyad wanaagooga iyo niyad samaantooda inay u libilaabi doonaan wax soo saarka qabadinka wax soo saarka waxbarashada wax soo saarka Soomaalinimada walaaltinimada iyo wadajirka inay joogi doonaan aad iyo aad baad raaliga ahaysaan waad maasantiin صاحبك hogaaminta xisbiga saaxiibkay Faysal golaha wasiirada dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxda dhaqanka oo garaad kulmiye iyagana aanu salaamayo halgamayaasha iyo badbaadiyayaasha Soomaali meel joogtaba hooyooyinka iyo hablaha Soomaaliyeed maamulka degmadan Shabeelley oo ugu horeeyo saaxiibkay Yuusuf assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan jeclahay Yuusuf halka soo istaago sharaf bay tahay inaan markii labaad taariikhdan imaado degmada Shabeelley waxaan halkan imiday Ramadaantii 2022 iyadoo cusub baan imiday halkan la igu casuumay aniga iyo ciyaalkayga iyo xaaskayga waxa halkan keenay Yuusuf Abdullaahi Cusmaan Colaad xildhibaankii Umar Sayid ahaa wasiir hore rag badan oo magacyadooda aan tiri karin xildhibaan Xasan dhamaantoodna aanu mahadnaqayo oo degmadan aniga igala dhigay saaxiib habeenka Ramadaantii markii halkan ku afturnay habeen barakaysan bay hayd waxaad markii la cunteeyay hilibkiina loo qalaan cunnay caani la cabay baan iyo duceeyo leedo aniga xaaska sagno maada ducay misaana ducayno adu duceey baa leedaaf waxaan idhi ilaahay degmadan mid barakaysan ka dhigo ilaahay degmadan mid wax weyn oo barakaysan uu keeno Allah ka dhigo insha Allah muddo kooban ka bacdi waxa la keenay mashruuca 2 bilyan ee bir ay degmada lagu maalgeliyay baa la keenay way soo sheegay waxa yiraahdo ducadii baa laga aqbalo war sheekh meeyo malaha habeenka Ramadaan beel ijaabada furnayda ilaahay idin aqbalay waan idin ka mahadnaqayaa maantana waxaan idin rajaynayaa inaad mid ka weyn ku yeeshaan sharaf bay tahay inaan imaado maantana iyadoo maamul magaalo dalacday runtii maalintii waan la yaabay markii la igu 3 sanadood bay jirtaa magaaladan dadka Soomaaliyeed badan baa jecel inay magaalooyin helaan inay degmooyin helaan laakiin marka loo magacaabo 4 gigidood bay kaga tagaan dadka deegaankani 4 gigidood kaga may tagin meel sare bay gaarsiiyeen muddo 7 sano gudahoodna waxay gaadhay inay maamul magaalo noqoto aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya xarunta halkan joogno ee dawladda deegaanka Soomaalida waxaan u aqaanaa xarunta ummadda Soomaaliyeed oo dhan baan u aqaanaa hadii ay hooyo jirto Soomaali leedahay waa dawladda deegaanka Soomaalida waayo dhammaan gobolada ay Soomaali degto oo dhan dadka dega meel laga wada helo halkan u baajirta meelaha kala qaybo kamid ah laga helaa sida darteed waxaan jecelahay inaad ilaashataan Soomaalinimadiina waxaan jecelahay inaad ilaashataan wadajirkiina waxaan jecelahay inaad ilaashataan horumarka iyo barwaaqada waxaan ku darayaa dhul baad haysataan la beeri karo waxaan jecelahay hadda kadib inaad u jahaysataan inaad ku tartantaan wax soo saarka oo aad noqotaan hormuudka wax soo saarka ummadda Soomaaliyeed meel joogtaba oo ad lagaga maarmo raashinka dibadda inooga imanaya oo xafiisyada dawladda iyo hogaamintu ay maadaragtay ku tartamaan degmadana Yuusuf saaxiibkay waan maalintii ku dardaro waxa ku iskaashatooyinkii samee waa in qabadinku uu Itoobiya qariyaan ku laga soo saaro degmada insha Allah taala waan rajaynaya walaalayaal idinka iga raaliya anagu dushaan idinka eegayna waxaan jecelnahay wanaagiina markaad qortaan baan jecelnahay markaad wada jirtaan baan jecelnahay garaad kulmiyada maalin dhaweyto leh halkan la faciisa maadaragtay hadal uu ka yiriyo fariin baa ilaa xalay la soo fariyo waxa la yiri war xildhibaankaygii baa tahay dawladda deegaankana xildhibaan baad u tahay fariintaasi waxa weeye marka dusha idinka eegnay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar iyo hogaaminta dalka waxaan idin ka codsanaynaa inaad gobolkii Gaashaamo iyo Xarshin iyo gobol Harewo la yiraahdo idin ku arintii kala waa dhameystirteen labadaana inaad ma aragtay aad u soo jeesataan oo aad bixisaan waxaan ogahay dadka gobolka Harewo jooga inay niyad wanaagooga iyo niyad samaantooda inay u libilaabi doonaan wax soo saarka qabadinka wax soo saarka